cagahaagu marka ay meel wada yaalaan waxaa loo yaqaanaa istaag bilaa faa'iido ah. Sababtuna waxa weeyaan waxaad u dhici kartaa afarta jihaba. Cagahaagu marka ay si barbar yaalaanna waxaa loo yaqaanaa istaag aan dhammaystirnayn. Sababtuna waxa weeye waxaad u dhici kartaa hore iyo dib. Cagahaagu marka ay kala horeeyaanna waxaa loo yaqaanaa istaag dhammaystiran. Sababtuna waxa weeyaan uma dhacaysid afarta jiho midna. Jilbaha markaad yar laabto ama aad isyar gaabiso waxaa kuugu jira laba faa'iido. Faa'iidada koowaadi waa awood siyaadin. Faa'iidada labaadina waa fududeynta dhaqdhaqaaqa. Gacmahaaga markaad kor u qaaddo iyana laba faa'iido ayaa kuugu jira. Cabbaynta feerka iyo difaaca qaarka sare. Cagahaaga marka ay isku meel yaalaan ee aad kala furteed isbarbar dhigto inta ay isu jirayaan waa inta ay labadaada garab isu jiraan. Adiga oo toosinaya laynka ama simaya lugaha oo aanay kala horeyn. Dabeeto waxaad u qaadaysaa lugta bidix muggeed intaad ku taagan tahay muggeed baad hore u qaadaysaa adiga oo ka ilaalinaya in ay ka soo dhawaato cabirka ay u jirtay lugta midig ama ay ka fogaato qoloc soo galo ayaad horteeda toos u qaadaysaa cagtaada muggeed. Taasoo sababaysa in ay sinaadaan ama layn ay wada saarnaadaan ciribta lugtaada hore u qaaday iyo lugtii aad ka tagtay suulkeedu iyagoo labada lugood ay u dhaxayso in labadaada garab intay isu jiraan muggeed. Jilbaha inta la laabaa waa dabcinuun. Gacmaha marka la qaado labada baabaco way isku soo jeedaan. Farahaaga markaad soo duuduubto waxaad ku xejinaysaa dusha ka saaraysaa suulka adigoo suulkana halkaa gabbood uga dhigaya islamarkaana inuu xejiyo faraha ka dhigaya. Taasi waa taa. Waxaa kaloo aad yeelaysaa cabirka ay gacmahaagu isu jiraan waa inta ay isu jiraan labadaada garbood. Xusullada waxaad ka ilaalinaysaa inaad hoos u dhigto misigta la sinaadaan iyo inaad kor u qaaddo dhakada la sinaadaan. Cabirka saxdii waa inay la sinaadaan madaxa gacanta. Madaxa feerku waa inuu la sinaadaa garhkaaga iyagoo isu jira inta ay isu jiraan labada garbood. Inay intaa ka kala fogaadaan lama rabo. Sababtuna waxa weeyaan si aanay uga fogaanin xuduudii ay wax ka difaacayeen jiha walba. Inaad kor u qaaddo ay wejiga qariyaan looma baahna. Waa inay garhka ay ka hooseeyaan ama ay la siman yihiin. Inay isku soo dhawaadaan lama rabo. Waxay sababaysaa in hareeraha lagaa soo galo. Inay hoos u dhacaan lama rabo. Waxa bannaanaanaya madaxa. In kor loo qaadana lama rabo. Waxa bannaanaanaya calooshii. Halkaa dhexe ayaad ku haynaysaa labada gacmood. Taasoo ah inaad dhufayskii ku jirto islamarkaana goob kasta oo lagaa soo weeraro aad ka gaadhi karto si fudud. Sidaasna waa dhisaanka gacmaha. Dhabarkaaga la toosin maayo oo mudh laga dhigi maayo ee waxaa loo soo yara qaloocinayaa wax yar dhanka hore
taas oo cabirkaad qaadanaysa uu noqonayo garhka madaxa waa inuu ku beegnaadaa waxyar kadib inta halkii jilbuhu ka horeeyaan. Soo foorso jilbaha waa inuu waxyar uu ka dambeeya bowdada waa inuu ku beegnaadaa adiga oo hortaada eegaya indhahaaguna ay hortaada hayaan.